بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن صاحبada raadiyaha magan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulan wareedka warbaahinta oo toddobaadkiiba ay nooga barateen maalinka arbacada sida maanta oo kale qodobada barnaamijka ay idinku soo gudbin doonana waxa kamid ah laakiin waxa laga rabaa xoog dhalinyaradii yaa laga rabaa sida hadda maskaxdiina u shiilaysaan inaad ogaataan dalka dagaal inuu ku jiro aad ku baraarugsanaataan sidii dagaalkaas aan uga adkaan lahayn cadowgeena madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulan heer sare u sameeyay dhalinyaradii ka qayb gashay shirka horumarinta tiknoolajiyada dalka Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka hadlay joojinta muxaadara uu ku qaban lahaa Muqdisho mucjiso cajiib oo ku dhacday qoys xoolo dhaqata taasoo tilmaamaysa in xoolaha reerkooda ay gowracayaan waxaana la arkay iyo gudoomiyaha xisbiga oo codoo sheegay in baryadaba uusan bari doonin hogaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena kama marno xubinta ciyaaraha iyo aragtida dadweynaha ee gabagabadana waxay noqon doontaa sida tan dadka xumata shilkii xanta yaanay ka helin dadka xumata shilkii xanta yaanay ka helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyaa hagaag dhegeystayaal aan u sii gudagalno kulan wareedkeena magan radio waxaad kala socon kartaa waxyaabo kala duwan oo ku xiisi geliya radio magan waxaad ka dhageysan kartaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka iyo gudaha haddaba ma ogaanina idaacadda magan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo kulan heer sare u sameeyay dhalinyaradii ka qayb gashay shirka horumarinta tiknoolajiyada dalka waatan wariyaheena bahja Cabdullaahi oo warkan inoo haysta madaxweyne Farmaajo oo casho sharaf u fidiyay guddiga qabanqaabada madasha tiknoolajiyada ee Muqdisho madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada casho sharaf ugu fidiyay guddiga qabanqaabada madasha tiknoolajiyada ee Muqdisho martidii ka qayb gashay maalgeliyaasha wadaniga ah ee ka qayb qaatay qabsoomida shirweynahan madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay ganacsatada Soomaaliyeed sida isxilqaannimada ah u maalgeliyay qabsoomida madasha tiknoolajiyada ee Muqdisho waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada maskaxshiilka ah ee ku haminaya inay la tartamaan dunida casriga waxay ogtihiin image-ka iyo sumcadda maanta Soomaaliya ee leedahay oo soo taxnaa muddo 30 sano ku dhawaada oo markii aad galiso Google ama markii dadka la weydiiyo Soomaaliya image-ka u soo baxaya markiiba wax fiican ma aha marka waxa isbedeli kara waa idinka dhalinyarada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga warbixiyay dhalinyarada qabanqaabisay iyo hal abuurayaasha Soomaaliyeed ee ka qayb galay madashan qorshaha dawladda ay ku qotomo joogteynta bandhigyada hal abuurka dhalinyarada diyaarinta qorshayaal qaran oo ku wajahan horumarinta tiknoolajiyada iyo xurmo cilmi baariseed dhankooda daneeyaasha tiknoolajiyada guddiga qabanqaabada maalgeliyaasha iyo hal abuurayaasha Soomaaliyeed ee la kulmay madaxweynaha ayaa la wadaagay miro dhalka madasha tiknoolajiyada ee sanadkan fariintooda ku aadan horumarinta dhanka cilmiga iyo dib u kabsashada dalka bahja Cabdullaahi Salaad bahja Smart warbaahinta magan fil Soomaaliya